waa dhigana ka mid ah sooyaalka iyo sidii ay u rabeen nasaaradu in ay u qabsadaan dhulka ugu muhiimsan buqacadda muslimiinta. Hardanka islaamka iyo nasaarada waqtigii nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee tirsiga sooyaalka hijrigu markuu ahaa sanadkii 7 waxay Tigreega iyo Axmaarada oo iswataa duulaan ku soo qaadeen kuna qabsadeen magaalada Riyaad iyaga oo ku socda doonayana inay kabcad qabsadaan oo ay dumiyaan doonayana in ay rumeeyaan fashilkii awowgood Abraham oo waqtigaa ka hor ku soo qaaday weerar isla hiraalka iyo halbeega awowgood ku fashilmay inay rumeeyaan iyaga oo doonaya ayay iyaguna waqtigaa halkaas soo gaadheen oo qabsadeen. Arrinkaasi wuxuu kalifay markuu maqlay nabigu naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee inuu u diray asxaabigii la odhan jiray Cumar al-Mudlaji oo ku guuleystay inuu celiyo kana hortago nimanka duulaanka ahaa. Mar labaad taariikhdu markay ahayd 20kii hijriga 13 sanadood kadib duulaankii hore khilaafadii Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu ayaa haddana nimankii Tigreega iyo Axmaaradii duulaankii mar kale soo celiyeen oo isla magaaladii ay yimaadeen iyaga oo doonaya inay kabcada qabsadaan. Markaana Cumar bin Khadaab isla asxaabigii nabiga u diray ayuu haddana u diray isaga oo wata asxaabigaasi 300 oo nin, laakiin markan laguma guuleysan oo rag badan ayaa laga soo laayay saxaabadii waqtiga hadal caan noqday buu Cumar bin Khadaab oo ahaa mar dambe ma dhacayso in aan qof islaam dagaal bad ugu diro. Nimanka duulaanka ahaa ee nasaarada ahaa Axmaarada iyo Tigreega wada socday sidaa kuma istaagine ahdigii reer Bani Umayya 83kii hijriga oo ku beegan 702 miilaadiga ayay haddana isla magaaladii lafteedii yimaadeen iyaga oo doonaya inay kabcada qabsadaan. Waqtigaasi waxay ku beegnayd waqtigii khilaafada islaamku aadka u xoog badnayd. idina waad soo baari kartaan sooyaalka iyo sida dhiganayaashu ay tilmaamayaan. Nimanka Axmaarada iyo Tigreegu laba goorba way dhacdaa inay islaamka soo weeraraan, marka islaamku xoogan yahay aadna u fidayo iyo marka islaamku liito ama taag daran yahay. Mar saddexaadse oo ah marka islaamku dhexdhexaadka yahay sooyaalka laguma hayo in ay soo weeraraan, sababtana dib baan ka falanqayn doonaa. Arrinka muslimiintu waxay kaga jawaabeen in ay weerar ku qaadaan Axmaarada iyo Tigreegii wada socday. Alxaasil nimanka Axmaarada iyo Tigreegu 854kii Rabiicu Thaani markay ahayd taariikhda hijrigu oo ku beegan taariikhda miilaadiga 1450kii January ayay haddana mar kale duulaan soo qaadeen. Axmaarada iyo Tigreega markan waxaa hogaaminayay Duur Yacquub boqorkii la odhan jiray. ninkaasi wuxuu diyaariyay waqtiga 200 oo doomood. goortani waxay ahayd markii muslimiintu aadka ugu dhibaataysnaayeen meeshii la odhan jiray boqortooyadii Andalus oo ku dhibaataynayay ee ku gumaadayay ninkii la odhan jiray Albawdul Khamis boqorkii Argoona ee muslimiintu aadka ugu liiteen burburkii boqortooyadii Andalus. ninka Duur Yacquub la odhanayay ee xabashiga ahaa hogaaminayayna Axmaarada iyo Tigreega isku dhafan xiriir ayuu la sameeyay ninka Isbaanishka ahaa sida ay kutubta taariikhdu dhigayso. ninka muslimiinta ku baabiinayay Andalus ee Isbaanishka ahaa ballan bay dhigteen ninka xabashiga ahaa in ay kulmaan oo ka wada hadlaan sidii boqorkan xabashigu intuu duulaan qaado u qabsan lahaa kabcada, boqorkan Isbaanishkuna intuu dhankiisa ka duulo u qabsan lahaa Baytul Maqdis. kadib labada boqor ee nasaaradii waxay isdhaafsadeen 2 danjire ama 2 safiir sida aad u taqaanaan. waxay ku ballameen labada boqor inay ku kulmaan magaalada Naabuli la yiraahdo ee ku taala wadanka Talyaaniga. markay taariikhda hijrigu ahayd bishii Shabcaan 854kii oo ku beegan taariikhda miilaadiga 1450kii Sebtembar. kadib labada nin way kulmeen waxayna ballan iyo wacad ku galeen in ay muslimiinta duulaan ku qaadaan oo ka xabashigu islaamka kaga soo duulo koonfurta oo qabsado kabcada, ka Isbaanishkuna kaga soo duulo muslimiinta waqooyiga oo qabsado Baytul Maqdis. waliba wuxuu la sii kulmay boqorka xabashiga ahaa boqorkii ka talinayay waqtiga boqortooyadii Rooma oo uu ka sii barakaystay waa sida iyagu aaminsan yihiin kuwa Ilaahay ka furtay. labada nin ee kala diinta ahaa ee mid haysta diinta Katalooniga midka kalena haysto diinta Masiixiga sida ayay ku ballameen. waxaad isweydiin kartaa daawade oo ma cilaaqo ama xiriir ayaa ka dhaxeeya xuruuftii Saliibiyiinta iyo nimankan Axmaarada iyo Tigreega ah. xiriir ayaa ka dhaxeeya
aynu ku horeyno xuruuftii saliibiyiinta ama xuruuftii kiristanku ay ku soo qaadeen dhulka muslimiinta. 3 meelood ayuu dagaalkaasi ka dhacay. meel muslimiinta waa lagaga adkaaday, meelna way ku adkaadeen, meelna ilaa maanta ayuu dagaalku ka socdaa oo laguma kala adkaan. meesha koowaad ee muslimiinta lagaga adkaaday lagana soo saaray waxay ahayd Andalus oo waxa la wareegay gaalada ilaa maantana haysta oo waxa weeye wadamada Portugalka, Spain oo dhul gaalo weeye xilligan maanta aynu joogno. meelna muslimiintu way ku adkaadeen oo aan ku guuleysanay waxayna ahayd dhulka loo yaqaan Sham walow si dadban oo xilligan aynu joogno iyagoo haystaan una maamulaan. oo muslimiintu dagaalka way ku adkaadeen waqtiga gaaladana waan ka farxalanay. dagaaladana waxa lagu jabiyay Ingiriiska iyo Jarmalka. walow aanu maanta dhulkaasi gacanta muslimiinta ku wada jirin oo Kiristanka, Shiicada iyo Yuhuudda oo Kiristanku ay ka dambeeyaan ay dib u qabsadeen gacantana ku dhigeen. gaar ahaanna Lubnaan iyo Falastiin oo maanta waynu ognahay waxa qase ka socda iyo sida loo galayo muslimiinta madluumiinta ee reer Falastiin. oo waynu arkaynaa waxa ka dhacaya magaalada Qasa ee lagu gubayo dadka Falastiiniyiinta ah. insha Allah qaybo kale ayaynu ku falanqayn doonaa. sidaan hore u soo sheegnay barnaamijka dhexdiisa 3 meelood ayaynu carabownay. 2 meelood waynu soo sheegnay oo meel waxay ahayd Andalus iyo wadamada maanta Spain iyo Portugalka loo yaqaan oo gaala la wareegto gacanteena way ka baxeen. meesha labaadna waxay ahayd dhulkan Sham la yiraahdo. meesha saddexaadna waa mid ilaa maanta lagu hardamayo. ilaa maanta oo maqaalkan aan qorayo taariikhda hijriguna tahay 1445 oo ku beegan 2024 miilaadiga. waqtiga aan maqaalka qoray bay ahayd taariikhdu, laakiin daawadayaal hadda oo maqaalkaan u bedelayo muuqaal taariikhdu waxay tahay 2025 oo ku beegan hijriga 1446. Kiristanka iyo muslimiintu way ku dagaalamayaan. meesha saddexaad waxa weeye qaaradda Afrika, gaar ahaan dhulka loo yaqaan Geeska Afrika ee ah dhulka Soomaalidu ay leedahay oo hadda ay Kiristanku faraba'an ku hayaan. kuwa Soomaalida ka mid ah oo munaafiqiin ahina ay u gogol xaadayaan kuna soo dhaweynayaan. bulshada wax magaratada ah intooda badan ay ku marin habaabiyeen sawir ahna arrimo ganacsi iyo wax isweydaarsi ay ugu eekaysiiyeen, balse xaqiiqdu taa way ka fog tahay. haddaba daawade, haddaad halkan soo gaadhay maxaad ka fahantay, maxaad se kala baxday, maxaad se ku dari lahayd? wixii fikirkaaga ahna faallada noogu reeb. wabilaahi tawfiiq.